السلام عليكم. مقالكنا maanta waxaan kaga hadlaynaa الدولة الفارسية ama Persian Empire oo naqaano boqortooyadan ama dawladan oo gaadhay heer awood ka gaari karaan boqortooyinku ama dawladu ilaa markii dambe dhulka ka gashay wayna adag tahay runtii inaan muuqaal ama laba muuqaal ku soo qaadno dawlad boqolaal sano soo tilinaysay laakiin waxaan ka hadli doonaa dhacdooyinkii dhacaynta boqortooyadan tilinaysay boqoradii soo maray waqtigii la asaasay soo kale muuqaalka hadii lacag la dheeraado waxaanu qaybinaa dhowr qaybood oo waan jarjaraya marka qaybta jecesha daawan kartaa hadii aad jecesha dhamaysatana waa dhamaysan kartaa aan bilaabana marka muuqaalkeena aan isla fahanay intaan muuqaalkana bilaabno xoogaa muuqaalkan gudihiisa waxaad ku maqli doontaa magacaan dawlado kala duwan laakiin dawladahaas oo dhan waxay ka sinaayeen laba shay labadaas shay waxay yihiin dadka asaasay dawladahaas oo dhan waxay ahaayeen farisiin dad la yiraahdo waa talabaad dhulka ka asaaseen wuxuu ahaa dhulka faris la yiraahdo ama Persia la yiraahdo sadarteed dadkaasi boqortooyinka asaaseen ama dawladaha asaaseen oo dhanba waxa la isku raacdaa farisiin waxaan maqli doontaa sida dawladda Khmeiniyiinta dawlad kale Atubataaniyiin iyo wax la laabo iyo kale Saasaniyiin la Saasaniyiintu waxay ahayd boqortooyadii ugu dambeysay ee Persian laga asaaso waana tii muslimiinta la dagaalantay ee Kisra iyo Shirwan iyo Kisra Yazdajardi ku jireen ee Khalid bin Walid la dagaalamisay Saasaniyiin aad loo oran jiray laakiin magacaana ama taariikh ahaan waxa loo yaqaanay Farisiyiin muuqaalkana markaan bilaabno dhulka Persia ama Faris ka tilinaysay dadkaas degan Farisiintu wuxuu ahaa dhulkan maanta waqti xaadirkan jamhuuriyadda Iran oo naqaano markii ugu horeysay waxa boqortooy laga asaasay sanadii 559 nabi ciise koor waxaana boqortooyadii ugu horeysay ka asaasay dhulkaas oo Faris ka soo jeeday asalkiisu nin lagu magacaabo Qurash waxaanu asaasay dawlad lagu magacaabo Khmeiniyiinta taariikh ahaan magaca Khmeiniyiintu Farisiintu buu soo galaa laakiin waxay boqortooyadii ugu horeysay ninkan Qurash la yiraahdo markii soo wuxuu ahaa hogaamiye qabiilad ama ugaas iyo garaadiyo xasan naqano kadib qabiilooyinka hogaaminayay ayuu intuu ciidan yar samaystay ku duulay dadka gaarkiisa deganaan ilaa intuu xoogaa dhulkii reeblaadsanay kadib ayuu samaystay xoogaa ciidan oo adag Qurash markaa wuxuu bilaabay inuu boqortooyinka gaarkiisa ahaa ku duulo kadibna qabsado boqortooyinka uu qabsado waxa kamid ahaa boqortooyadii Baabil ee wada naqaano xadaaradeedii heerkay gaadhay waxaana soo maray boqortooyada Baabil nin loo oran jiray Nabucodonosor nin keligii waqtigiisa dunida ka soo taliyay waana ninkii boqortooyadii Yahuuda loo oranayay Yahuudu lahayna dhulka geliye burburiyay Quraysh markaa wuxuu ku guuleystay inuu Baabil sida u dhammaan qabsado dhulkiisana ku soo daro boqortooyadiisina xoogaa weerar faaftay Khmeiniyiinta loo oranayay Quraysh markaa wuxuu ku guuleystay inuu qabsado dhul istiraatiiji ah waqtigaas oo adduunka ugu muhiimsanaa sida bilaad Raafidiin dhulka la yiraahdo Ciraaq oo kale Masar ama dhulkii Sindi loo oranayay Hindiya waxaas oo dhan buu qabsaday Quraysh markaa uu geeriyooday dawladda Khmeiniyiintana dhowr boqor oo kale ayaa soo maray ilaa laga soo gaaro boqorkii afraad ee dawladda Khmeiniyiinta waxaana la oran jiray Dariuskii koobaad Dariuskii koobaad nin boqortooyada Khmeiniyiinta faafiya ayuu noqon doonaa Dariuskii weynaa ninka la yiraahdo ama boqorkan afraad ee dawladda Khmeiniyiintu boqortooyada Khmeiniyiintu uu balaadhiyay ilaa uu ka gaaray Qawqaaska galbeedka Aasiya dhulka Macedonia la yiraahdo bariga Yurub ilaa xataa Masar uu dhaafay oo Liibiya ayuu qabsaday dawladda Khmeiniyiintaana waxay ahayd dawladdii ugu horeysay ee waddo ka dhista saddex qaaradood ay ka tilinaysay waqtigaas Aasiya Yurub iyo Afrika waxaana caasimadu ahayd dawladda Khmeiniyiinta magaalo dhacdo koonfurta Iran waqti xaadirkan oo la yiraahdo Bersablis magacaada bilaa hay'adda UNESCO ayaana sanadii 1979 ku aqoonsatay goob taariikhi ah Dariuskii weynaana uu geeriyooday dawladda Khmeiniyiintana boqorro kala duwan ayaa soo maray ilaa laga soo gaaro sanadii 334 sanadan waxa soo baxay ama ay dagaal la galeen boqor dhalinyar ah oo iska cunugahaba oo Alexander the Great la yiraahdo Alexander the Great wuxuu ahaa boqor Macedonia ama dalka Macedonia la ka soo jeeda boqorkan xukunka la wareegay soo gabigiisa 40 jira boqortooyadiisu waxa ku ekeeyo kaliya Macedonia dalka la yiraahdo waxaanu geeriyooday isagoo 34 jira muddo 42 sano u dhaxaysa wuxuu ka taliyay Macedonia laga soo bilaabo ilaa iyo dhulka Hindiya
ninkan Alexander the Great la yiraahdo ayaa marka dowladii Khmeiniyiinta dagaal la galay. Khmeiniyiintana waqtigaas waxaa boqor u ahaa Daroskii saddexaad, ma aha Daroskii koowaad ee hadda ka soo hadlaynay. Daroskii saddexaad boqor la yiraahdo. boqorkan iyo Alexander the Great waxa ku kulmaan dagaal fara badan, waxaana ugu caansanaa dagaalkii Gaugamela la oranay kama dambaysta ahaa. Close to the Persian village of Gaugamela, Alexander the Great and his army of 45,000 Macedonians faced King Darius and a Persian force nearly 5 times larger. Darius's army stretched in an unbroken line 4 kilometers long. The odds were dagaalkan Alexander the Great ay ku guuleystay dowladda Khmeiniyiintu si uu dhammaan u jiro u baabiya ilaa uu ka soo gaaro dowladda Hindiya. dowladda Khmeiniyiintu xagaas ay ku soo aftaranto taariikhdeeda ku baabaaday. Alexander the Great ninkii la oranay dhalinyarta ayaa baabiyay. boqorkan Alexander the Great markuu Masar soo galay magaalo ayuu samaystay, kadib magaciisa uu la baxay. magaaladaasna waxaa la yiraahdaa Alexandria, ilaa waqti xaadirka uu jirta waa magaalada labaad ee ugu weyn Masar. taariikhda Alexander the Great iyo dagaalkii kama dambaysta ahaa ee Gaugamela channelka ku jira oo hore ayaan uga soo diyaariyay barnaamij oo soo daawan karta. dhacdooyinkan oo dhan waxay dhacaan Nabi Ciise koor 300 sano, welina waxay noo hadhay Nabi Ciise kadib. dowladda Khmeiniyiinta la oranay markay burburtay, Alexander the Great uu sii jeeday. Alexander the Great geeridiisa kadib haddaba dowladdiisu weyneed way kala furfurantay oo way kala daasantay. marka waxaa bilaabantay in haddana dadkan Farisiinta la yiraahdo isla dhulka Faris ay boqortooyin kale ka asaasaan, waxaana la oran jiray boqortooyinka ay asaaseen. Khmeiniyiintu iyagu way dhamaadeen. waxaa ku soo xigay Atrobatikaniyiin qaar la yiraahdo. waxaa ku soo xigtay dowlad Saluuqiya la yiraahdo. waxaa soo kale ku soo xigtay tukalaaduna Ashkaniya la yiraahdo ilaa laga soo gaaro mid magaceeda la yiraahdo Sasaniya ama sida loo yaqaano Sasaniyiin. waxaan filaynaa diyaar wararteen xoogaa isla faano. waxaana boqortooyooyin ama dowladaha laba shay ay ka simnaayeen. waxaa asaasay dad Farisiin la yiraahdo oo shucuub asalka Farisiinta la yiraahdo, waxaana ka asaaseen dhulka Persia ama dhulka Faris la yiraahdo. labada shay isku tagay awood waxaana dhan waxa la isku raada Farisiyiin. dowladda Sasaniyiinta la yiraahdo waa dowladda la dagaalami doonta Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa oo Khalid bin Walid ay jabin doonaan. sanadii 224 Nabi Ciise koor waxaa asaasatay dowladda Sasaniyiinta la yiraahdo, waxaana Sasaniyiin lagu bixiyay boqorada soo maray dowladdan awoogood ee Sasaniyiin la oranay, sadarteed ee Sasaniyiin lagu magac daray. laakiin caalamka ama taariikhyahanadu waxay u yaqaanaan Persian Empire ama ad-dawla al-Farisiyya. boqorkii ugu horreeyay dowladda Sasaniyiinta wuxuu ahaa boqor lagu magacaabo Ardashir, waxaanu tilmaantu u dhaxaysay 241 ilaa 226. dagaal badan uu galay kadib boqorkan uu geeriyooday. Ardashir markuu geeriyooday kadib waxaa xukunkii boqortooyadii Persian Empire kala wareegay wiilkiisa Shapur Ardashir min la yiraahdo. Shapur Ardashir wuxuu caan ku ahaa nin dagaalyahana, wuxuu dagaal la galay waqtiyadii ugu horreysay dowladda Romanska la yiraahdo. uu dhul badan ka qabsay boqorkii Romanska uu soo xiray kadib dagaal lagu magacaabo Iadis. kadib dhimashadii boqorkan Shapur Ardashir ama Shapurkii koowaad, dowladdii Farisiinta Sasaniyiinta ahaa asalkoodu iyo dowladdii Romanska dagaal isla galeen. si kooban haddaan u sheegno, dagaal isla galeen kolba mid ayna guuleysanay ilaa laga soo gaaro Shapurkii labaad boqor la yiraahdo. Shapurkii koowaad oo ninkii ka soo hadalnay kan magaciisa laakiin waxaa la yiraahdaa Shapurkii labaad. waxaanu tilmaantu u dhaxaysay 309 ilaa 379 Nabi Ciise kadib. Shapurka labaad inkastoo wiil dhalinyar ahaa ama wiil yar ahaa, laakiin haddana nin dagaalyahan ayuu ahaa. dowladdiisii ama dowladdii Farisna aad buu ballaariyay ilaa uu ka gaaray China oo Turkiyada ka soo sokaysay gebigooda uu sii jiray uu qabsaday. dowladdiisana uu ballaariyay. markuu geeriyooday kadib Shapurka labaad wuxuu ka tagay dowladdii Faris waqtiga ugu awoodda badnayd uuna ballaaray. Shapurkii labaadna taariikhda dowladda Farisiinta waa nin caan ah maadaama dowladda aad u ballaariyay. waxaana ku soo xigay boqor la yiraahdo Bahramkii shanaad, waxaanu tilmaantu u dhaxaysay 420 ilaa 438 Nabi Ciise kadib. waxaana soo gaarnay casrigii labaad ee dahabiga ahaa ee dowladda Furus. casrigii koowaad ee dahabiga wuxuu ahaa waqtigii Shapurkii labaad uu tilmaayay. casrigii labaad ee dahabigana wuxuu ahaa qarnigii shanaad Nabi Ciise kadib. sanadii 532 ilaa 579 waxaa xilka dowladdii Furus qabtay boqor anigii adigu wada naqaano caana Kisra Anushirwan, waana boqorkii ugu caansanaa dowladda Furus maadaama dhaqaalaha waddanka iyo ciidanka militariga waddanka hagaajiyay.
boqorkan isla waqtigu talinayay jasiiradda carabta waxay ahayd waqtigii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhashay 571 nabi ciise kadib. haddaba geerida Kisra Nushrwan dhalashadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee jasiiradda carabta dagaaladii futuuxaadkii Khalid bin Walid hogaaminayay maashii Khalid bin Walid dhulkana ka talisay Bershiya muuqaalkan xigeen kaga hadli doonaa. haddaad ka heshay fadlan la wadaag asxaabtaada lana soco insha Allah muuqaalka dambe. wassalaamu calaykum.